alla masayrku xuma oo xanuun darana ku soo dhawaada saaxiibayaal sheekadan qosolka badan balse inteenan u gudbin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inoo sheergaraysid oo aad asxaabta kala gaarsiisid waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan. xaaska ay qabsatay sheekadan waxay tiri markii aan umulay ilmahaygii ugu horeeyay waxaan aaday guriga qoyskayga saan u soo joogo inta aan 40 baxayo waanan la joogay. maalintii aan dhammaystay ayuu soo wacay ninkaygii oo uu igu yidhi waan ku soo kaxaynayaa sii diyaargarow waayo gurigiiba adiga la'aanta qiimo ma laha. anna waxaan isku dayay inaan in yar isu yara macaaneeyo oo uu xoog iigu seexiiso taas oo ay hablihii ila dhashay ay igula taliyeen. dabeeta waxaan ku idhi maya ma soo noqonaya iminka ee 2 toddobaad kadib ii kaalay anigoo maqlaya taladii walaalahay. wuu iga carooday waxaanu isku dayay inuu igu qanciyo inaan raaco laakiin go'aankaygii ayaan ku adkaystay. haddana maalinkii dambe ayuu isoo wacay oo igu yidhi soo noqo laakiin maan dhegaysan oo sidii hore ayaan ku adkaystay oo waan diiday. kadib waa uu iga tegay mar dambena soo baxay nakeen iguma soo celin. 2 toddobaad markay dhammaadeen ayuu ii yimid oo waa uu ii kaxeeyey. inta aanan bixin wuxuu igu yidhi gabar kale ayaan guursaday 2 isbuucaad iga maqnayd waxaanan dejiyey gurigeenna qaybtiisa sare. aad baan uga naxay hadalkaas. waxaan isku dayay inaan u jawaabo nasiib xumo inta uu igu qayliyay ayuu igu yidhi haddii aad doonaysa inaad la joogto reerkiina la joog haddii kalena ina mari. anna inaan raaco ayaan doortay si aan u soo arko xaaskiisa cusub oo aan uga soo aarguto. markii aan soo galay gurigii ayaan isla markiiba maqlay sanqadhii ama jabaqdii kabaha ay xirnayd taasoo igu kalliftay inaan aad u murugoodo mar kastoo aan maqla socodkeeda. ninkaygiina wuxuu bilaabay inuu kolba sare aado oo uu u tago iyadoo taasna qalbijab igu noqotay. markaan maqla sanqadha kabaha waxaa igu soo dhacda inay taa macnaheedu tahay inay mar kasta labisanayso oo xaragoonayso. 2 cisho kadib ayuu igu yidhi isdiyaari aad soo salaantid caruusadde taasina qasab ayay kugu tahay. waan raacay. markaan albaabka hor istaagnay ee uu soo saaray furihii qolka ayaan maqlay dhawaqa albaabka oo uu qof furayo. bartii ayaan ku dhacay oo waan suuxay. waxaan soo toosay anigoo wejiga biyo la igaga rushaynayo oo uu ninkaygii igu leeyahay xabiibti toos oo eeg. markaan soo kacay ee aan eegay waxaa meeshii igaga soo baxay neef lax ah taas oo lugaheeda lagu xiray daasado bir ka samaysan. dabeeta xaajigaygii ayaa igu yidhi maadaama si caafimaad leh uu alla kuu kala keenay adiga iyo ilmahayga yari neefkani waynu ku alla baryaynaa wixii aad igu samaysana dib ha igu samayn xabiibtii. anigiina naxdin ayaan maalmo ka soo kaban waayey. laxdan xumina mar keliya maacmay odhan intii ay ku xidhneed meesha. haddaba saaxiibayaal waxaan filayaa inaad sheekada ka bogateen. aragtidaada bal ka waran wixii ku dhacay gabadha iyo wixii uu sameeyey ninkeeda. muuqaalkan si ay asxaabta kale uga bogtaan inoo sheergareeya.